بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله شرفت له muuqaalka kan kusoo dhawaada ee muhiimka ah insha Allah taala isbaraarujin muhiimana ay ku jirto muuqaalkani wuxuu daaran yahay oo ka waramaya saacadihii ugu dambeeyay ama habeenkii ugu dambeeyay muuqaalkan yani inta ka horeysay iyo maalintii ugu dambeysay arin bulshada dhexdeeda dadkeena macnaha yani hadal hayeen oo ku saabsan qof ama haweeney ayaga ka dhalatay oo Soomaaliyeed laakiin siyaasiyad dal kale oo yani aan Soomaali ahayn siyaasiyad oo macna xilka haysa arin ay sameysay oo ayadu yani sida la tilmaamay ay soo gudbisayba oo aan laga sheegin ayaa dadku falcelin badan ka sameeyeen oo kala duwan falcelintaas oo haddana aan isu dhaweyn midba jiho afarta dhinaca mid bari ka hadlay midna waqooyi ka hadlay midna galbeed ka hadlay midna koonfur ka hadlay ay dadku iskugu jiraan iyo kuwa si kalaba u hadlayba ayaguba qaar ayada caayay qaar hadii la kooran yahay ficilkay sameysay yani aad iyo aad ugu dhaleeceeyay ugu cambaareeyay marka arintaas rabaa wax yar inaan ka dhaho biidnillaahi gabadhaasi waad fahamteen marka aan yani tilmaamay dalka ay ka soo jeeday oo dalkaasi Mareykanka macnaha ay siyaasadda ka tahay asalkeeda dadkeena ay Soomaaliyeed ilaa haddana ay tahay dadkeeda ku faantay islaamkeeda sida muuqatay aan ogeynba laakiin arintana soo baxday oo ah in ay aroostay ama ay guursatay sida iyadu sheegtay nin yani aan Soomaali ahayn aan Afrikaan ahayn yani sida loo badan yahayna ama ay tahayba aan muslim ahayn in kristaan ama nin masiixi guursatay oo ay yaqaaneen marka hore iska agdhawaayeen oo siyaasadda iyo harjadkaas iskula jireen ay guursatay iyadana waxaan ku ogeyn inay ahayd haweeney mu'minada oo muslimada muuqaalo hore ka sameeyay yani hawlo badan oo markaasi bulshadu hadal haysay ku saabsanaa baryahaasi dadka qaar waxay ku hayeen arin ay markaasi sameysay laakiin waan ogeyn inay ugu haystaan oo leeyihiin haweeneydii saasabeysa taageeraysa yani dadkeena waxa yani rabaa in halka inoo sheego mar walba qof markii wax yani arin laga soo gudbiyo ama arin yani qofkaasi lagu amaano waxay ka fiirinayaan dhinaca negative-ka ay fiicnayn markaasi dhinacaasi qofkii u sheegay waxay leeyahay dhinacaan isaan ku hay macnaheedu ma aha qof markaad amaantid ama qof aad yani wanaag ku sheegtid in dhinac kasta aad ka amaantid dhinac kasta aad ka difaacday negative-kiisu leeyahay waxyaalo ku xun leeyahay qof kasta leh anigaygaana adinka leh dhamaanteen baa waxaan rabaa inaan dhinaca mar walba negative ka fiirin dhinaca positive-ka u badataan taas waa shay muhiim oo noloshaan waxaas anfacaya wax kale ma anfacayaan xaqiiqatan dadkana iskuma keeni karaan walaalnimada islaamnimadana ma qurxin karaan mid aan mar walba aan u taaganahay rabaa inaan ka hadlo marka arintaasi markay soo cusboonaatay dadkii iyo warbaahintii dhinac kasta ay u qaada dhigtay warbaahinada kuwa ugu caansan America ayaana markii hore soo bandhigay kadib bay noo soo gudubtay waan ogaanay laana dad badan oo Soomaaliya taageersanaa xildhibaanad weeye Congress Mareykanka aqalka u sareeya dalka wadankaasi meelaha yani sharciyada laga sameeyo laga xukumay ku jirtaa waxa kala xil weyn bay haysaa gaartay dadka in badan oo kamid ah ku faaneen muslim iyo kuwa kale aan hay dad badan baa soo doortay hawlo badan markii hore qoys bay ahayd marka qoys Soomaaliyeed ay ahayd Soomaali ah oo ka kooban yani 3 caruur iyada isaygeed 5 qof ka kooban qoys bay ahaayeen qoysnimadaas marka lagu taageeray qoys Soomaali inuu yahay halka gaaray baa lagu taageeray qoyskoodu waa burburay anagu kama warqabno wixii burburiyay cilad kasto burburisay maxkamad in arinta la geeyo la kala fasakhay la kala furay baan ogeyn la kala tagay yani ninkii uu meel kala aaday qof walba meeshiisa u danaystay qofka markuu isfahmi weydaan dad kala tagay ilaahay iskuma keen tolin marka aruba laakiin ka dhaxaysay taas waa shay muhiim oo marka hore inaynu fahanno qadiyadana soo baxday marka in cadaan guursatay waa nin aan muslim ahayn sida muuqata waa nin yani xisbiga ka tirsan waxaana lagu sheegay in uu ahaa la taliyaheeda dhinaca siyaasadda ee dhinaca doorashooyinka aloolahana u qaabilsanaa doorashada soo socotana u qaabilsan ayay la taliyo waxa marka iyadoo haweeney oo muslimada oo xildhibaanada oo madax sare waxa uu ahaa la taliye waxa rubama laga yaabaa kaligiis inuu ahayn dad badan u yihiin marka waxa fiicnaan lahayd sida la sheegay in haweeney la taliyo ahayd la taliyo noqoto laakiin haweenku in badan ayagu isma aaminsano ragay marka qaarkood ka soo dhaweystaan waxay leeyihiin iyada ku afgambilisay adoo xiriirka hoose waxa la sheegay waxay tilmaameen dadka qaarkood inta ka sii fogeeyeen waxyaalo aan aqoon iyo meel ka keeneen bayntii gaarsan waxay dheen ninkeedii markii Soomaaliga qabay
wuxuu ka shakiyay in haweenaydiisaan ama xaaskiisaan ninka cadaanka xiriir la leedahay iyo subxaanallah saaxiibnimo iyo wax la midka kadib waxaan khilaafka halka imaaday asaga furay kadib buu si toos u ordo Soomaaliya u tuga gabar soo guursaday sida ay tilmaam halkaas gaarsiiyeen halkay ka sii dhaliyeen taa waxa kamid ah inay dhaheen ninkan cadaanka sira badan buu haweenaydan ilaahan ka hayay marka sirahaasi inuu faafiyo ee ka cabsatay ku khasbanaatay marka inay guursato kadib waa inay muujisaa marka wuxuu ku dhaqdhaqaajinayaa jira inuu guursado nin kale uu jeclaaday uu rabay inay ka Soomaaliga iska furtana waa uu rabay hawlo uu ka hayay sir ah waxaan ogeyn wax ilaahay يعني ونكو علم الله هاي أيوة ده هي دنا وسر وسر هذا يتهيأ ناشري أيضا مشي قف كلام مشي سبحان الله ما لها سئل الجارة أيضا في عنين هل كان يعني هوش الجارسيو تهمه يوح يعني أن مش أولين حتى أن موقن حتى هذا ملتشران ملها سئل على الرميسان أيه هاي إن الضبق على هاي سرات يفضحات النوع عاس أدوجو وحصاد عيبة ماشى هول صومر تبع ما أنت وح كله واقضي inay tahay haweenay la guursaday u guursaday la taliyay hore dhinaca siyaasadda doorashooyinkeeda u qaabilsanaan doona hawlo badan oo siyaasadda ay saaxiib ku ahayeen haddana ay nolosha wadaageen sidaas ay tiri alxamdulillah ay tiri marka Instagram ka sawirka soo dhigtay bal saan dadku u xambaareen way ogtahay ilaa hawlahaas inay Soomaaliyeed in badan ayay xirtay community-giisa looga bixin marka alxamdulillah way tiri nolosha hadda ku midownay waxaan rabaa marka siyaasadda xagga markaan iska dhigno falanqaynta kala duwan ee dadka iyo tuhmada ay ka bixinayaan iyo caayida iyo fadeexada iyo waxyaalaha noocaas halka anagu iska dhigayna waxaan rabnaa inaan si yar kale inaan u eegno waxaan rabaa qofna aan cambaarayn qofna aan caayin halkana uma joogo waligeyna ma ahayn qof macnaha waxaasi waayihii dambacaada ka dhigtay waayo qofka hadal wanaagsan iyo duco aad wax ugu keeni weyday wax kale waxba ugu ma keeni kartid marka kaliya qalad inay tahay waa aragnaa haweenay horta muslimad ah oo mu'minada nin aan muslim ahayn inay guursato sharciyan ka diin ahaan la diin baad ma sab sheeganaysaa ma banaanta waa qodob la rabo in la tilmaamo haddii ay banaantahay see ku banaanaatay dad baa dhahayo way banaanta haday isa banaanayna si loogu diiday waa in la isweydiiyaa noo qofna tuhmin qofna caayin qofna wax ka sheegin aqligaada isticmaal waxaad aaminsan tahay isticmaal diintaada isticmaal nolosha wadcigaad ku jirtidna ogow waaqicada ka turjun marka si diiniyan si waaqiciyaan rabaa inaan idin ishaaro ilaahay idinkiis horta gabadhaasi waa gabadhe walaasheen oo Soomaaliyeed oo muslima saan anagu ognahay ficilkan ay sameysay dhaqankan dad baaba diinta uga saaray oo muslim ma ahan dhahay halkaasna waa arrin ka sii fog fadeexada waxyaalaha lagu tuhmayo waxaas oo dhan anagoo dabageel waxaas ilaahay nooma dirsan iimaankeeda ilaahay nooma dirsan waxa ay sameynaysaa ilaahay nooma dirsan qof walba ilaahay baa xisaaminaya adduunyadu sida ahaan mayso rabbi baa dadkan iyo noloshan ka horeeya oo maaragtay xisaabin dooro sugaya waqti uu qabtay oo xigmadiisu keentay la sugay anagu markayna farfarayno ilaahay daba marno khalqigiisana kala xukuno kala naashnaashno hadba mid sumad u sameeyno ilaahay nooma dirsan qof walba nafta nabiyo umada rasuulka ilaahay wuxuu yiri markay fitan ku imaadaan umadii la kala saari waayo kii saxnaa iyo kii khaldana ilzam baytak amsik lisaanak gurigaada joog dantaada ku mashquul ku khaaska wadac amr al-aama dadka hawlahooda guud iskaga tag carabkaadana ilaaliso marka ay hawlu soo noqdaan isku margaa anigu waxaan rabaa inaan idin dhaho qof kasta hada gabadha kaliya ma dad kala soo bixi kara kuraasta heli kara kuwa kala wadamo kala geeri kara magac yeelan kara Soomaaliyeed ku inaan ku faanana ay tahay rag iyo dumarba laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego dadka halka ku nool reer galbeedka macnaheedu ma ahan dhaqanka adiga iyo diinta adigu aaminsan tahay wax dhaawac ku ah inaad ku kacdid saad u sii cambaxdid u sii difaacdid bulshada u sii dhexgashid siyaasadda awood ugu sii yeelatay macnaheedu ma adoo aaminsan ayaad xisaabtami kartaa wax ku khasbay ma jiro dunyada xor ah dunyada ma aha waagi rume aniga raac ma aha gabarun de gabar diin yani ku dhalato ehelkadaha laakiin aqoon badan u leh ma say buug kala rogayso hadba jaamacad u raadinayso hadba iskool u raadinayso waqtigii dhamaaday halkaan ay ku soo baxday marka waxa la rabaa aqli cilin iyo nasteexayn addiinu nasiixa nasteexaduna waxa weeyna khayr la jeclaatay ay markii meesha timaadana khayr lama jeclaatay de waa ayda waa habaartay qaar baa habaaray oo ka sii taray marka meesha waxa la rabaa in muhiimadda aynu ogaano markaynu aan ka nimaano siraha kala duwan ee dadkaas sheegayaan meel ay ka keenan la aqoon ee waxyaalaha noocaas tilmaamaya sharciga islaamka waxa jirta wax la yiraahdo sharka in laga hortago iyo hadduu dhaco si kale looga hortago sidii markuu uusan dhicin looga hortagayay
hadda looga hortagaya hadduu dhaco si kale looga hortagaa qaab kale loo xaliya qawaacid ugu waaweyn islaamka ayay ka mid tahay arrintaas marka gabadhan waa hawsheeda waa la warhaay wax kasta lagu fasiray wax walba lagu fasiray hawlo badan la geliyay qaar waa difaacan qaar waa weeraran laakiin Allahu musta'an waxaan rabaa inaan ogaado gabadhaas iyo gabar kasta oo galbeed ku nool oo niyada noocaas leh iyo qof kasta iyo nin kasta iyo muslim kasta iyo mu'min kasta iyo Soomaali kasta aan u sheegayo waxa weey horta adu markaa tiri Ilaahay baan rumeeyay rasuulkiisa rumeeyay macnaheedu waa maxay inay fasirtaan rabaa عاطفة حق أسكدينا أورورتك حق أسكدينا بل يفسر إلهي بان رومي رسولك سان رومي أنبياء دي سان راع وضد الصحة دان قادم حلقة وضع يعني وين كوتشان قوناتا حدود إيه حرية أي دين تاني كسيني سؤال كوتشان قوناتا الله رومي معناه دو أمحي أمر كيسان قات وحديدين وان تيد على أساس الرسول قواسطه صلى الله عليه وسلم إن كوتشان قوناتوي هذا ترى مرك الدين تان إسلام كان هو بكتة جيبه مركان نوع كلا نقطة هقول كلا أوش هذا النقطة ما بقى مستني بقى حدود ده مرة أمر كذا نبيليه هاي ناس أسكت سلقلينية وعقاب لكن إن ترى إلهي بن رومي سنة هاي دينتي سنة من سنة حجاب كيان فانيا حدنا كس أدو سمين سي وح وصل إلهي أقولين اسمه قبنيسو مؤمنين تمرك لو يراهدو كالايا أمر كإلهي قول كإلهي وكالايا سمعنا وأطعنا لكن نفاق حقيقة إيمانية سمعنا هذا الكواب مقلي وعصينا وحرمنا سميننا taasi looma baahan mu'minka qowlkiisu waxa way sameeyna waa tacna amar ilaahay markuu imaado way ma inuu ka xarag furto ilaa diinta waxa raba sameeynay haddaad aaminsan tahay waa inaad xuduudda iyo wax ku jaan go'an tahay samaysaa taasi waa muhiim inaan ogaano marka gabadha muslimnimo ku ogeyn marka waa inay xuduudda qofku ilaaliya xuduudda islaamku uu ogoliyaa wuxuu ogoliyaa maanta sharciga Mareykanka aan uga tusaale qaadanayna qadiyada halkaas xiriir leeyahay sharciga Mareykanka wuxuusan ogolayn qof ku dhaqaaqi kara malaha qof ku dhaqaaqana waa dambiile dalkeena baasaboorka Soomaaliga qof wata fiisi Mareykan lama siinay waa la mamnuucay waxaan dhahaynaa ha cunsuriyad bay wadaan dadka kala saaraynaan maxagaas iyo caadifad aan cilmi ku dhisnayn baadan waxaan leenahay ما أمان كودي وحبسدين ما أنا جاي سكر نجا أمسيهين وحين نجا أمسيهين ما إسكا بدلنا يعني دينا حلين كلام ما نوفيرنا قف كاس حرب ولا يدل كيسوين وكود يدينو كوق على هذا الصومة دين تنا واساس وشرعي قانون لا يدجي وحا يعني كوق شوينا قاتا وحيسن كوق وين الديدا أساس وين تكون سقناتا هذا بها وين مؤمنة أو مسلمة أو أمسين دين تان midaan aaminsanayn xaq iska dhigay way bacad in aan muslim ahayn guursato ma banaan tahay marka aayaadka quraanka fiirino sida islaamku ahaan jira fiirino ma banaana khalaas ya ma banaana sida soo banaanay waa lagu sheegaa marka ikaadi kan aad arkaysaan waa kitaabka quraanka kariimka kan ba anaga nolola dastuur dawlad haday samaysatay dawlad kala samaysatay khalad iyo sax wuxuu doonaan ayaga iskale لكن كان ونرش أصل كذا وي دستور حتى ما دحينه عد جوني وياه ملهن خلق إلهي بوسميه كان ونحرس وياه خلق إلهي لما أنتيس فاتحة هرجة هبين صلاة كنت كنا محي ترادا عدايزة بسم الله الرحمن الرحيم نحرس ينبت كلي يسود ويس بكو بلابت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب المسلمين ميا رب العالمين عالم كانوا أنك إلهي قرآن شدوا كم يتهاي ومسلم كم يدي وغيرك كم يدي وجنك ينسك أيهن يحيوان ذكر مركا كان هو مد نلاشي الدنيا إيه كون كان إسكالية كان مركا وإن عاد مركات رومي سنتهاي أد لازم تقواعد ديس ربي وحكولية في سورة البقرة آيات دلنبر كيدو يهي لبابقو لباتن يكو ربي وحكور رمي يكو إلهي شركة أسميي أيو أحكام قور أهانا كور رمي ربي حلي ولا تنكحوا المشركات marka waxa la hadlayaa ragga muslimiinta ha guursanina haween ilaahay shirki u sameeyay waa maxay ilaahay buu dafiray maya oo kaliya ilaahay buu dafiray ma ilaahay wuu aaminsan yahay laakiin wax kale la aaminsan yahay shirkigu waa asaas ilaahay inuu jiro laakiin ilaah kale la jira ilaahiyadu waa badan yihiin waa wadaag shirkigu waa wadaag sharaakadu wax way shirkadan oo kale hebelna qayb ku leeyahay hebelna qayb way wadaagaya marka ilaahayga xaq ah ee koonka laha iyo ilaahay asagu samaystaa wadaagaya waxa shirkigu saas way qof sida aaminsan oo haweenaya adoo ilaah kaliya xaq u aaminsan ha guursan kaas waxa la ku
اللهم ما يلي هذا ما أمر ميستك كتك صار دم بمحاول صلاة اسكت في حجاب عاد وضع طور ما الكستم موجود حر إلى وقت حسابين دوما إلا أمر كيسا خلافته أمر كنا ماذا خلافين أمر كرب با خلافته نوع كستوي هيبة حتى يؤمننا إلى أورمين أيه رب إنه حق عباده وليه عندنا يسكون كان الله هاي إلى قبل أي رومينس ولا أمة أدون يمد أي سيسين لكن مؤمنة إله الروميسان كلجيس خير وحيك خير بدنتهاي من مشركة مداسيش إله وحكى لو ذاكسي وأوذيه إلهي عد كراسيسي ولو أعجبتكم هذه هبيد عجبس هبات كهشان قروح ديدا شركة دا عقل جدا علم المادي جاي تقال هبات كهشيد به تازا أنت عباء يتأقون لك إله يذكرون إنسان وسيدي كلها الطبيعي يعني فطرة لا يكونه مركز دين عقل والله الله دمر كمؤمنين يا مسلمين ولا تنكحوا المشركين rag sidaa aaminsan oo ilaahay awoodiisa cid kale la wadaajisay ee uu gaar kale u lahaa ha guursanina gabdho muslimiino hatta yu'minu ilaahay kuwaas rumaynayaan kalignimada ilaahay wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala wa'jabakum nin adoon oo mu'mina macna ayasiisid oo dadka laga tirabino waxba qiimo kula lahayn laakiin mu'mina ka khayr badan nin aad ka heshay quruxdiisa oo ku cajabiyay oo muslim aan ahayn حصل هاي قبلها مؤمنين كلها في سورة البقرة يا ربي محاسداس أسميسي إلهي وحي أولئك يدعون إلى النار كوان شركي قسمين النار بكوي هريا نار بكوي هريا هي والله يدعو إلى الجنة الله أمر كيسان حقي كوي هريا ربي وحو كوي هريا تشنو الدنيا يمد آخرة ومغفرة بإذن يتم بداف استقدرت يد بسان الله ويالي ويبين آياته للناس سيدو كلا وحو الله ويلي سيداسي سو ددك او عديا آياتك إلهي أحكامتيس يوحو راليغا كيا يوحو راليغا كاي سو كلا سارو oo dadka ugu sheego insaanka ay soo sameeyay insaanka maxaa laga rabaa marka la'allahum yatadhakkarun runta way rabbi wallahi wa run waxa halka ku jira ila allah basa yiri ba koonkan oo adiga kule wuxu dhan laakiin kuwa waxa jira ba allah haasi dafiray oo noocan ahayn مسيحي أهين أو يهود أهين أو كريستان أو مسلم أهين وحبا أهين ملحد باليرا إله ما بجرا بقى كاسي هذا محور رميست حنون كان عالم كان دقوفا فوق رميست هذا ويدي سمحة أو رميست حنون كان ما بقى ركتدي إما تابسين كرتدي وكلية والله جور رمي دقاتير تبى شيء قد ضد اللي ما أنا يابا أرجنا عالم قدام بابا كعبادي وأمد كلا دسامين تيزان أرجنا أنت وعس كذا آمنات دو حنون كان آمني كان إله الضفير السن إلهنا حقي سوى كسوجين oo ilaah saameyntiisa koonka waa ka aragnaa qof baa dhimanay qof buu nooleena caafimaad koonkaanu maamula cirkaanu taagay dhulkaanu ku gal saameyntii maadiga u jeedna mid kale waa nolo kaga warramay ambiyada dhan iyo dadka caqliga leh inuu ilaahay jiray aaminsan taama rumaysi kanba waad rumaysay arrimaha baana sababa inaa ku rumaysay yada ilaahna saa waa inaa ku rumaysay saan buu yahay intaba waa ka ku rumaysay in waa yahay ilaahay waa laga helaa tabaaraka wa taala saameyntiisa maadiga iyo يعني ذاتك لو كلسون كورميين نبي الله محمد أقول دمي وعيسى كمدي وموسى كمدي عليه الصلاة والسلام لكن قف مركو هودي سوى كان سما وحنا حاجة إسكادي وين نوع عديا فعل كيسو كليا ما حبط رميسو وين عديست ضد عديست واجرا هذا كواس مركو ضد كينو وكان استعيون ولا غنست وين عديست ما شرط كلمة لكن أنت كان رميسنا وحرمان كل رقمية اسمه قاضنيس dalkan haduusan fiiso ku siin waa iska galaa waa lagu qabanaa xabsa lagu dhiga iska socod ma jiro wax walba xuduud bay leeyihiin wax walba qaanuun bay leeyihiin adigaan doorashada soo galay haddaan doorashadaasi soo gali lahayn oo codkaasi heli lahayn xildhibaanka maada noqoteen ka waran mid kula tartamaysa haddii codka ka badan lahayn oo ka qaadi lahayn kursiga ma waxa dhilay amba waa ku jira meesha hal igu daro codkaadi halkaas kula haray marka kana sharciga reebay waxaan haweeney mu'minada inay nin مسلمين كورسته ذلك قاركود أيضا بوشي بيكون كان واحد عن مشرك بالغ ورمية لكن كان مسيحي يهودي كان مشرك ما وهدو عيسى إله عزير با إله مشرك معناه دوامع شرك وحلوش هذا الضفيرات إله اللي جمعه ده وحلوش هذا إلهنا ورميسنا هاي رميت أصلا رميسنا يا ودي سنة عد كرانسي والله وده شيء وصل سمية شرك واساس أصلا شيء بإله كل يقول هو الله أحد إن بدون بإله كسر العلنية الله وكلي ور الله واجرا waa la isku waafaqsan inta hadda soo baxday oo hadda dafiraya mooyaane oo si kale ay u waxyaalaha iska dhacsiinay laakiin ummadda inta badan ilaahay inuu jiray aaminsan laakiin nin walba dariiqadiisu uu aaminay sidoo ku yahay aayadu marka waxay noo cadeynaysaa in arinta ilaahay reeb samxan wa taacan
وحكستي ربيتان كلو ماشي إجهاي آيات كلو في سورة الممتحنة وامتحان سورة دا ولغوك لهري سورة دتن دتك هو يسوق لبحين قال له حليه صوت الضمر ككهلية لا هن حل لهم لا هن الضمر كمؤمنين تماهن كوا حل حلال لهم رجع المؤمنين تا مسلمين تاحين برب عادي يقول لي يا عدان ولا هم رجع المسلمين تاحين ماهن يحلون كوا حلال والضمع كجلي كرو لهن ضمر كمؤمنين تا رب ساس لي هي جل جلاله وعظم السلطان سؤال بهالك إيمان كرت وأرجني إنه إلهي دي سبب إلا وحن أجنها إنك مسلم كإن هويني أم مسلم هذا يجورسن كرو كاران هذا يسمى مشركة ده هاي سيجونية معناها هذا يكون أكتر سنة يسمى كتاب ولو هلا قلده يجورسن كرا سيدا مسيحيين تا يهودا مرك رجل مسلمين تا ولو بنيه مدو مركاد يعني لقنش باري سانو قاعم الريح يسمى ما يولجوش كذا لبا من المشي وكشران هذا مسلمات هاي إسلام قصة سرية لقى مسر من النقطة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لقى مسر النقطة هويني أمؤمنة ده هاي نين أمؤمنة هاي مركي جورستنا أسقط السرية ده هويني ده يعني أطيعه وحاو ربو أمر بويه سما أسقط معمولة يا أسقط مضحى وحكستي هاي ما حكستي قرت نلله بسما مركي هويني مؤمنة ده نين مسلم هاي أود بكم الله هم بيا ما هسوا دي مدة كله هذا أيجو يعني اسكو ميد منهن أنه احترامني كإنسان هان يو قفل بحضنا دون إلهي با حسابني لكن حق وعدي صما وحن اسكو ميد هين أيضو مؤمنات ده هويني للمسلمان ده وحي رميسان تهاي نبي محمد ووحي رميسان تهاي نبي عيسى ووحي رميسان تهاي نبي موسى عيسى وحي رميسان تهاي ومؤمنات هدايسان عيسى رميسانين مؤمنات معه لكن نك عيسى رميسان ما أنت مسيحي بهنا هاي نهاية نبي محمد مر رميسنا جو يا مرك عقدة كتشرته هل كان يا عقدة كتشرته أنا ونبياش رميسنا عيسى ورميسنا عليه السلام عيسى إيمانك يقول كميتي حدانا رمين مؤمن بميه بقى عيسى نبي إلهي نوها إلهي وصدري صالح هو معصوم وها بلا ذنب وها أبلا أنا ورشي معجزات كربي وها حدانا رمين مؤمن ميه أيونا نبي محمد مر رميسنا وحيقول لي ما بصاحر بوكاذب وانم بينا خيالي بصادست دقمو بصادست ريريسا إسلام نوقته أيقول لي marka ayagu way dafireen diintaadu laakiin adigu ma aad dafirin diintooda sadad isku mid ma noqon karti isku mid ma noqon karno anagu diintoodu waa rumaysanahay diintii ciise diintii muuse kristaan yahuud wax soo rumaysanahay diin ahaan ilaahay soo deji injiil tawraat laakiin ayagu ma aaminsana diinta kitaabka quraanka waxaan ma aaminsana nabi maxamed marka keeba yaani sareeyo oo nabadgelyo ku nool hadii alla ku ruuyo amarka ilaahay mid qaatay oo ilaahay aan mucaaradin كيف ساسي سو بنانا متكلا هويني مسلم هادو نين مسلم غورسدو سامين تسابدن واسلام كرا وهويني وحربو ابوري كرا جعيلك اي جعيش ددتوغا فايديسن كرا waxbad laakiin haday haweenay tahay يعني نين مسلم ahay غورسدو خلاص والله يبقى inay saameyso soo jeedo باذن الله وانا رجين doona باذن الله مستقبل لكن خلطاتكو in la sii weynayo khalataad kala lagu saxarmaa arrintaas waa arrin la rabo in aynu si fiican uga fakarno amarka ilaahay inuu qaadano waxa laga yaabaa taageerada doorashada inay haleysaba waxaan oo dhan oo ay macnaha hoos u dhigto leeyahay qoys Soomaaliyeed baan ugu taageernay haweeney gooni u taagan oo waxay rabta sameynaysa anagu maana taagan waxaan u taageernay qoys Soomaaliyeed oo dhisan oo istaageeray ninkeeda maxay siyaasaddu bariwada aqoon u bariwada ha taageeray laakiin waxba hooseeya wixiina Allahu a'lam ilaahay waa ogyahay ayaguna ogyahay waxba lagu kala tagay qof kasta wax furi kara qof si kasta loo kala tagi racaan kasto leeyahay nabi maxamed baa furay oo soo ceshado furay oo sida ku kala tagay oo ka dhintay nolosha asaas waa iska caadi laakiin tan noo muuqata in haweeneyadu muslimin muslimin guursato muharram sharci islaamka xaraam way sharci islaamku waa ku diiday ma waa raba ilaahu waa ku diiday ma waa raba hada sharci iskaga batag baa laakiin haday xataa samayso waa macsiyo dambi macnaha waxa uu jeedna qof wax dilo oo kale qof been sheego dambiyada kabaa'irta kamid diinta kuma baxayso hadaysan xalaalsan marka diintan adigu ha ka saari dambina ku sii riixin wala nabiga dabac ya naxariis iyo duco alla soo wada hanuunin dhamaan khalqiga inta dhuusan midka muslimka ahayn alla muslimka dhow soo hanuunin naar lama jecelina midka muslimka ah ee khaladka badan ku jira ee dambiyada galaya insaanka la dambi xataa ka galaya alla isagana soo hanuunin dhamaanteen baa hanuun u baahan inay soo wada cafino barakallahu fiikum si kastoo noqotaba aday samaysay way samaysay توبة إلهي وكسر ردي كرا
laakiin haddana masiibo ka daran baa jirtay masaa'ibka kale allaha naga hayo waa haweeney ninkaa guursataa ilaahay wada hanuuniya saas keliyaan lena bas ilaahay dhammaantooda wada hanuuniya ayagana khusaysaa annagu waan nasteexaynaynaa waan sheegaynaa bas xukunka cadaynaynaa qofkii yeelana wuu yeel qofkaan yeelina khasab kuma lihin warwal waan sheegnay haddaad qaadanaysidna adiga ku jirta haddana qaadanayna ku jirta ma qaadanaya fi amaanillah waa qaatay fi amaanillah iyaduna aad baa mahadsantihiin baaraka allahu fiikum waxbaa isku mashquulinina danteena kale aan ku mashquulna jazaakum allahu khayran